السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا ساعة ميلو بوجوتان وحدكو دباتان شركة داسة جروب blogspot.com عشريات كحيساب بنا كوسابسان information technology وحلقة زدحات كوسابسنا ويب سايت كان كوديسين بلاتفورم كبلوجر هذا ما أنت عشر كاني وحين سجيني وعبي داير عشر كانوا حكوا بردونا لو بونتيات مهمة بونتي كواد أيه وحي سيدا تجس تصاد كاسي لو بدلو أو أتكو بدلته كرادي هالكان iyo si loo bast gareeyo halkaani text search milay dhibaato badan ayaa ka imaado marka dhibaatooyin ka imaado aniga cashkan ayaan ku sheegi doonaa daawade hadaba marka labaas boonti sameynayno marka boonti koowaad si loo sameeyaa text search kaasi loogu bedela magaca marka waxaad imaanaysaa template-ka aad imaanaysaa meesha ku dhisan HTML ku dhisan website-kaada oo dhan oo laga maamulayo code-kiidan ah ayaa tagaysaa marka then waxaad taabanaysaa control adoo mouse ku dhufanaysid meeshas baadiga dhaxdiis inaad ku dhufanaysid then aad taabanayso control F calaamad search ka halkaas ka arki doontid markaas waxaad ku qoraysaa text to search macnaha waxa halkaas ku qoran ayaa soo raraysa text to search kaasi ayaa soo raraysa then waxaad imaanaysaa meesha text to search ka ayaa qoraysaa waad diraysaa waa kana ونصو قبته وحكومة يستحق about text to search معناه وعطاي هدي مقع عوضه متكوكو هذا كاسا وحاول text مقع واحد كدكتي text to search مركا وحالله text to search هدي اللي قدفتو text to search مركا وإنه تترمى text to search كمركا أيوة معني سياس ويان مركا واحد ما نسى قيادة سدحات وقيادة مقع لو بدلو قيابان كلا مد كواد مد كلابات معهن مقع إن أكبدل مايو لكن وقيادة سدحات قدام بيسو أيوة مش لك بدلو وحالكس قرينا كرادي هالكاني أو شيت طاول إقرأ النقطة وعملينا إن كرادي هالكاني أي أو قرنات داود كرادي هالكاني إن كوبي جوهد لكن قرض أيان سمي أنا كل لابنا مركب بلوجرك كان كل لابنا إدي HTML tag الريانا سمي وضع إقرأ النقطة وكان التكست تساعد إماو كرادي هل كان قور مركب وقيت سدحات آيات واحد قرصة كرادي هل كان حالات قري أنا إيدلت واحد قرصة كرادي هل كان كرادي halkan marka karaadi halkan marka qorto had save daadano sharci qaar kamida sharci oo text search u yaala ayaan jibinay marka asina wuxuu sameey doonaa waxaan u baahanahay ayuu asina dhaawici doonaa waa maxay waxaan u baahanahay text search halkaasi ku qoran hadii aan ku dhufto inuu text search ka daleedo marka anaga taas kuma cusub hadda على text search ayaan bedelnay aan view blog dhahno blogina soo hado way kaada wajida karaadi halkaas ayuu ku qoray laakiin marka ku dhufno ma ka tiray karaadi halkan sababtoo ah sharci ayaan qaladnay oo ah hadii halkan fiir text search kaasi hadaan aan macna text search ka hadii aan ku dhufto text search waa inaad ka daleedaa ayaan adaad ahayd marka waa in aad text search ka aad ka bixisaa halkan sababtoo karaadi halkan hadaad qorto ku qorto inta raadi hadaad ku qorto waa labadaas qayb kale waa inaad raadi ku qortaa hada halkan ku qorto fiiri waa laba qayb kale waa inaad fiiri ku qortaa saas weeyaan marka qaybtaas koowaad waxaad ku qoraysaa karaadi waxba qaldan qoraalka karaadi halkan qaybta kale waa inaad sidaas ku qortaa qaybta labaad oo dad ka tagna ayadana waa inaad ku qortaa karaadi halkan sidaas marka labadooda ugu qorto hadda waxaad awoodaa macnaha kara hadda waxa ku fasiro koodkadan ku fasiro waxa waaye magaca waxaan ka dhigtay karaadi hadii karaadi lagu dhufto waa inuu ka daleedma karaadi sidaas ayaa la mid tahay si faal dhahno marka waxa saddex mar lagu soo celinayo karaadi waa sidaas hadalkaadi waaye oo aad ka dhigtay language oo kood ka samaysan sadarteed aan safe dhahno marka waa ina sidaas samaysaa marka ereyga aad ciwaan oo dhigto waa ciwaanka waxa noqonayaa qaybta saddexaad ayaa noqonayaa magac bedelida waa qaybta saddexaad labada koowaad iyo labaadna waxay tahay waa sharci ku dhisan marka hadaa midda saddexaad aad qorto raadi ku kale waa raadi qortaa
saddexaad waxa ku qorto waa inaad labada kale ku qortaa saas ay mar laba tahay aan view blog dhaano hadda markaan ku dhufto create halkan waa u jeedaa create halkan uu ku dareemay bounty labaad oo aan ka hadli doono maanta ay wuxuu tahay sida loo sameeyo bosti marka waa inaad maadaama meesha ku xukumeynay marka sameynayso bosti waxa loo sameeyaa laba qaab qaabka koowaad ayaa wax tahay markaad joogto baariga meesha laga xukumo website-kaada new post meesha ku qoran ayaa u jeedaa qaabka koowaad waa marka ku dhufno inaan meeshii baariga aan wax ku diyaarinay inuu noo soo qormayo qaybta labaad ayaa wax tahay inaan ku dhufno meesha post ay ku qoran tahay then aan ku dhufno create new post halkaas aan ku dhufno inaan halkaas tagno create new post dhaano marka aan dhaano new post marka dhaano kow waxaan u baahay inaan sameeyo ciwaanka muxuu noo noqon karaa ciwaanku waa soo diyaarsaday ana 10 ayaan soo diyaarsaday waa kana ciwaanka waxaan ka dhiganayaa waa maxay domain waxaan ka soo qaatay casharkaani website-ka setgroups.blogspot.com shirkadaas ayaan ka soo helay waa maxay domain haye baariga maxaan ka dhiganaynaa halkan markaad qorto waxaad doonayso ciwaanka aad doonayso markaad ku qorto halkan waxa ku qoraysaa waxaad ciwaankaas uga hadlayso iyo wax kale waxaan ku bar doonaa cashar soo xigta si loo sameeyo video si loo soo dhaxgalsho meel aad umaraysa video loo soo dhaxgalsho si sawir loo soo dhaxgashaa si link loo sameeyaa sida qoraalada loo kala durgiyaa sida si loo qurxiyo qoraalada waxyaabaas aniga waan ku bar doonaa baadigan waan ku sharxi doonaa insha Allah cashar kale aan ku soo qaadanayo marka maxaan oo hadli karaa baadigeena casharkan waa kana waan soo diyaarsaday isoo halad garay dhamaan tis okay copy soo dheh halkan aan best ku leeyahay waa u jeedaa inuu noo diyaarsan yahay casharkii waxaan leeyahay marka publish halkaas qoonta aan ku dhafanaynaa publish si oo casharkii noo dhigo public may waxaan waxa waay google ku save garay u dir ayu waxaas inaga codsanaya inaan ku share gareyno google plus-keena marka hadda uu inoo sameeyay hadda aan fiirin marka view blog aan la dhahno waa u jeedaa daawada markaan dhahnay waa maxay premier domain in halkaas aan u soo qoray marka waa u jeedaa daawada waa maxay premier domain in halkaas aan qorto waa maxay premier domain in aan sameeyno hal post marka u jeedaan halkan wuxuu ku soo qori doonaa postiyada aad sameeyso ayaa halkan uu ku soo qori doonaa postiyada maanta hadaa post la soo dhigto postigan wuu wareejinaa post labaad waxa macnaha waxa la mid tahay qaab xajir oo ah in loo sameeyo casharo u dambeeyay new breaks waxyaabo sidaas camal ayuu la mid tahay halkaas ayuu ka wadayaa cashar badan soo dhigto marka template-ka aad u qurxiyay waa kale waa template aad u wanaagsan marka waa kaasa inaan sameeyno post marka aad ay u mahadsantiin casharkan la socotaankina waxa idin ku codsanaya waa aniga Cabdi Daahir oo teacherkiina oo idin ku codsanaya inaad subscribe noo sameeysan channelkeena si cashar walba markaad subscribe sameeyso maxaad awoodi kartaa awood waxaad u leedahay inuu cashar aan soo dhigo aan upload gareeyo in uu ku sheego oo ku ogeysiyo wuxuu ku leeyahay channelka sjoking.com ayaa wuxuu soo upload gareeyay cashar cusub sidaas marka casharka aad soo daawanaysaa سيدتي وانا جاك سبسكرايب نو ستا عشق aan share garan dhaana hada cashka aad fiirsaneen waad inaad share garan dhahdo oo dad kale u faa'iideyso waxa laga yaabaa inaad aad keenin waxyaabaas website laakiin dad ayaa kale oo fursadaas aan awood u leeyahay fursadaas ma haystaan waa inaad u faa'iideysaa aad u share garaysaa si ay wax badan nin hadda waxa laga yaabaa website waxa soo dhacsaneen laakiin maanta uu ka helo website si loo sameeyo inuu horumar weyn ka gaaro laga yaabaa marka daawada share garay cashka share garay taas ay very important for me okay السلام عليكم ورحمة الله